السلام عليكم saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee sheekooyinkii qosolka badnaa ee kaftankii Bisle ama Bisle Jokes. waxay inoo mareysay wali qabrigiisa muu ku jira sheekada xigta arooskii riyada. waxaan ku riyooday anigoo aroos layga casuumay. markii aan arooskii tagay anigoo dhar caadi ah qaba xoogaana soo daahay baa waxa igu soo kala orday gabadhii reerkeeda. waxayna igu dhaheen wariyaa maanta dhan baa lagu sugayay diyaarna ma tiid adiga lagu xayiran yahay maxaa kaasi ah. aniga waan yaabay oo maxaa la igu sugayay oo lagu xiyiran yahay ayaan weydiiyay. reerkii way isku noqdeen waxay ogaadeen ninka ay sugayeen inaan aad iskugu egnahay balse aan aniga ahayn. ugu dambeyn waxay isla garteen inaan aniga galo ninka beddelkiisa. waxay ugu dhaheen nooceeb qari. markii hore xoogaa waan cabsaday maadaama gabadh kale xiriir naga dhexeeyay oo waan diiday. laakiin markii aan gabadha arkay quruxdeeda waxaa igu soo dhacay orahdii gabdhihii reer mudug ee ahayd doqon baa ka tago alaab dayacan. markaas baan isiri fursaddan ha isdhaafin malaha waa duco waalid oo dad lagaaga soo dhigay. meerkii uu dhacay waxaana loo galbiyey hoteel loogu talagalay inaan toddobada uga baxno. markii aan hoteelkii degnay bay gabadhii musqusha gashay oo soo qabaysatay saawaaba dhaqantay quruxdii la soo riinjiyey waa liin baxday arooskii riyada. sheekada xigta taliya waa soo biibaxay. mid reer muqdisho ah baa Jabuuti ku kululaatay. waxaa lagu dhahay orod oo Hargeysa u xagaabax. saaxiibka markuu Hargeysa yimid waxaa ku dhagay laanta socdaalka ee Soomaaliland maadaama uu baasaboor Soomaaliya watay. adiga cabbaar markii la iska dab wareejinayay buu musqul aaday. waxyar markuu ku jiray baa degdeg loogu wacay asagoo suunka isinyeerka xiranin baa sargaalkii ugu sirreeyay laanta socdaalka loo geeyey. taliyaha wuxuu weydiiyey maxaa soo doontay. xamraawiga intuu naxay baa ereyga xagaa u gooyey kulaha taliye waa soo biyo baxay. waa sababta xamar loogu tarxiilay. sheekada xigta adooga aa layga dhigi rabay. wiil reer waqooyi ah iyo mid reer xamaraawi ah baa waxay isla dhiganayeen jaamacad. midkan xamaraawiga ah waa mid hadal badan kan reer waqooyiga ahna waa nin hadalka badan neceb. haddana af xamaraawiga ma fahmo inta badan. maalintii dambe intuu xanaaqay buu yidhi waryaahee war adiga maxaa lagaa dhigi rabay. xamaraawiga oo hadalkaas dhibsaday baa si xanaaqle u yidhi adooga aa layga dhigi rabay. sheekada xigta ma inay dhaxanta dishuu rabaa. wiil ciyaalka xaafadda oo murugaysan baa waxaa u timid islaan. markaasay weydiisay maandhow maxaa kugu dhacay. wuxuu yidhi awowgay aa qabaystay. wuxuu ula jeeday awowgay baa dhintay. islaantii oo aan sidaas u fahmin meesha la joogana waa Nairobi Kenya oo aad u qabow waxay tidhi muxuu saacaddan la qabaystay ma inay dhaxanta dishuu rabaa. sheekada xigta allow yaa kurka ka gooya oo qaro u saara. oday qaraha aad u jecel baa Nairobi Kenya tegey. gabadhii hoteelka hagaajinaysay buu ka yaabay jirkeeda siduu u qurux badan yahay iyo si wejigeeda u falxun yahay. intuu sidaas u fiiriyey buu yidhi allow yaa kurka ka gooy oo qaro u saaro. sheekada xigta haddaad indho qabto. gabar baa waxaa guursaday nin aysan reerkooda raalli uga ahayn. walaalkeed oo aad u xanaaqsan baa suuqa uga hor yimid. qoftan oo hoos fiirinaysa buu wejiga shantiisa farood jug uga siiyey. naasee tahay. intay xanuunsatay bay tidhi waryaa indhaha iga ridin. markaasuu dhahay ma awal baad indha lahayd. intay indhaha taagtay ay faraha wejigeeda ku fiiqday bay tidhi haa indha u qabi waayey kuwaan hay yihiin. kulaha haddaad indho qabto makaan arkay baad guursan lahayd. sheekada xigta waxa igu yaallo mageesabaa. mid baa walaalkiis lacag ka ballanqaaday. wakhtiga ballanta buu u yimid. xaaskiisa baa wacday waraa caliyo walaalkaa baa kuu yimid. cali wuxuu xaaskiisa ku yidhi waa jiifaa dheh. gabadhii baa tidhi dumaashu wuu jiifaa walaalkaa. markaasuu yidhi ma hurde uwac wuu soo jeedaaye. gabadhii baa tidhi yaa kuu sheegay inuu soo joodo. markaasuu yidhi waan maqlayey markuu ku lahaa waan jiifaa dheh dhagama qabi miyaa waxaan igu yaallo mageesaa. sheekada xigta oday bakhayl ah iyo wiil dhallinyaro ah. wiil ciyaalsiyaha baa wuxuu iska soo buuxiyey baraafuun aad u carfaayo. oday bakhayl ah baa yidhi adeer cadarkan aad soo marsatay meeqa ayaad ka soo bixisay. wiilkii baa yidhi adeer waxaan ka soo bixiyey $50. odaygii kulahaa maandhow kontonka waa meeqa liitar. sheekada xigta sida lagu wada haddaan laga dayn rajaa laga qabaa. oday daalan oo guurka ka raagay baa naag guursaday. markuu muddo qabay soomaalidana ka deen weysay naagta uur ma leedahay iyo maxaa ku dhacay oo ay ilmo u dhali weysay buu is yidhi malaha cilladdu waa xaggaadee dabka badso. wuxuu u tegey qolyaha dhirta wax ku daweeya. markaas baa la soo siiyey alaab asaga dhan shiday oo 20 jir camal ka dhigtay.
asagoo isu bogbogaya oo 90 iyo dheeraad garoonka jiifka hadba dhinac uga ordaaya baa odayaal tulkiisa u yimaadeen. waxay ku dhaheen waryaa hebel naagta ma dhashada intaad ku agablami lahayd iska fur. wuxuu yidhi sida lagu wada haddaan laga dayn rajaa laga qabaa. sheekada xigta malakul jibriil baan sugayaa. kabtanka qaranka iyo kooxda Hegan waxaa la dhahaa Jibriil Xasan Friid. waxba kama tuugayo Messi iyo Ronaldo laakiin wuxuu ka dhashay Soomaali. aan u soo laabanna kabtanka Jibriil waxaa lagu naanaysaa Jibriil Malag. ciyaartooy Hargeysa ka yimid baa wuxuu rabay inuu Serie A ciyaaro. intuu isxurays iyo xarigjid geli lahaa wuxuu isiri waxaad u soo martaa ciyaartooy kooxaha xushmeeyaan si aad boos u hesho. waa dhaqanka kubadda Soomaalida. waxaa la baray kabtan Jibriil. waagii madax jebiska bilowday baa asagoo meel ku sugaya waxaa u yimid qolyo boolis dhar cad ah oo ninkan galtida ah ka shakiyay. waxay weydiiyeen yaad halkan ku sugaysaa. saaxiibka oo magacii isdabamariyey baa yidhi waxaan sugayaa malakul Jibriil. sheekada xigta 2 jirkeenna baa hadlo. mid baa asagoo yar reerkiisa oo degan mudug baadiyaheeda ka dhuuntay. wuxuu tegey Xamar halkaas oo adeerihiis joogeen. wiilkii intuu weynaaday journalisti soo bartay baa reerkiisa u tegey si uu farxadda ugu geeyo. aabbihiis baa yidhi waan maqlay inaad wax soo baratay oo aad jaamici noqotay ee maxaad soo baratay. wuxuu yidhi aab waxaan soo bartay journaliste. odagii waa fahmi waayey waxa laga wada journaliste. wuxuu weydiiyey mid asaga ka weyn oo meesha fadhiyey waryaha jaamac journaliste waa maxay. jaamac baa yidhi aab wuxuu soo bartay sida loo hadlo. odagii intuu bakoora saaray buu yidhi war 2 jirkeenna baa hadlo markaas baa adigoo nin weyn ah sida loo hadlo soo baratay. saaxiibayaal barnaamijkeena maanta halkaas haynoo joogo. saaxiib ha hilmaamin inaad channelkan subscribe saarto sidoo kale gambaleelkana aad furato sifa aad u noqoto daawadaha ugu horeeya markii aan muuqaal soo gelinno.